barasaabka gobolka Saaxil ayaa maanta waxa shahaado sharaf guddoonsiiyay cuqaasha gobolka Saaxil waxayna cuqaashu sheegeen in gudoomiyuhu shahaado sharaftani uu ku mutaystay waxqabadyo kala duwan uu ka hirgeliyay gobolkan Saaxil. Munaasabad lagu qabtay xafiiska maamulka gobolka Saaxil ayaa waxa goobjoog ahaa barasaabka gobolka Saaxil, xogayaha fulinta dowladda hoose, xogayaha gobolka, xildhibaano iyo cuqaal. Ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay Chief Caaqil Xasan Shaqale iyo xildhibaan Maxamed Cali Dheere waxayna ka warameen shahaado sharaftani ay maanta gudoomiyaha gobolka ay guddoonsiiyeen cuqaashani. haddaan nahay golaha dhaqanka waxa weeye xafladaan ku guddoonsiinayno gudoomiyaha gobolka shahaado sharafeedkaas oo aan ku guddoonsiinayno hawl baryahanba soo socotay oo tuulooyinka degmada iyo gobolkaba ka mid ah dadkii barakacayaasha ay abaartu ay saamaysay raashin loo qaybinayay. gudoomiyuhu isagoo taa ka dadaalaya ilaahay ka jisaaysiiyay hawshiisa qaranka uu hayo gudanaya ayaa wuxuu u gaadhay tuulooyinka aynu soo sheegayno 44 tuulo ka kooban degmo. runtii waxaan ka marakacayaa Axmed inuu yahay gudoomiye bisil oo saacad kasta iyo goob kasta oo aad uga baahatay baad helayso. cuqaasha iyo madaxda dhaqanka ee gobolku ay arrintan ay soo abaabuleen in runtii aan ka mahadnaqno oo kaaga mahadnaqaynaa cuqaashana waan ku hambalyeynaya arrinta ay soo abaabuleen kulli ka golo deegaan ahaan anaguna maadaama ay tahay mas'uul waqtigeega muddadeeda la shaqeynaya in anaguna shahaado sharafeed shahaado dahabeed anagu ku siino. barasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan, xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cad, xogayaha gobolka Saaxil Sacad Ciise Cumar oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka warameen wada shaqaynta ka dhaxaysa cuqaasha gobolka Saaxil, maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera waxayna cuqaasha uga mahadnaqeen sida fiican ee ay ula shaqeeyaan. gudoomiyahan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku guuleeyay hawlo dhinaca nabadgelyada ah arrimo taagnaa muddo 20 sanadooda reer dad wax kala laayay muddo 20 sanadooda oo aan wada hadlin oo aan isaga imanin ayuu gudoomiyaha ilaahay wuxuu ku asturay oo ku guuleeyay isaga maamulka gobolka iyo maamulka degmada wada jira in hawshaasi dhamaato oo dadkii ku kala qaataan ehelka ku walaaloobaan. runtii sharaf weyn bay maanta noo tahay inaan ka soo qayb galno shahaado sharafta gudoomiyaha gobolka la guddoonsiiyay cuqaasha gobolka qaar kamida ay guddoonsiiyeen gaar ahaan uu ku saxiixan yahay Chief Caaqil Xasan Shaqale waxayna muujinaysaa runtii isku xidhnaanta maamulka gobolka iyo degmada iyo cuqaasha iyo deegaanadu ay si isku xidhan yihiin. waxa lagu xusay gudoomiyaha sida sharafta leh uga qayb qaatay maamulka guud ahaan gobolka gaar ahaanna shaqadii ugu dambeysay iminka oo ahayd qaybinta raashinada gobolka soo gaaray oo si cadaalad ah maartay u dhacday. runtiina sharafta guud markasta cidda ugu sareysa gobolka baa qaadanaysa inkastoo tiimka oo dhan la wada shaqeeyeen anaguna aad iyo aad baan maxay tahay abashid gareena una soo dhaweynaynaa. aad baan idinku mahad celinayaa sida sharafta leh ee maamuusta leh ee aad xafiiskayga igu timaadeen isla markaana shaqadaydii caadiga ahayd ee marka horeba aanu idmanaa aad garateen haddana inaad shahaado sharaf igu siisaan. shaqadani waa shaqadii marka horeba inaan qabto aan maxaan ku dhahay idmanaa inaan bulshada ugu adeego hataa saayidkiina maxaan ku dhahdaa igu tixgelisay aad baad ugu mahadsantiin. runtii hawsha waxa weeye aynu soo sheegnay ugu dambeysay imka laga hadlayo waa raashimada waxa laga yaabaa raashinkii marka hore la qaybinay waqti buu lahaa waqtigu markuu dhamaado waxa la rabaa in haddana mar dambe la dalbado la yiraahdo noo kordhiya. waxaan ka codsanay dadkii markii hore bixinayay ee la siinay 2000 qof ahaa timekii mar hadduu ka dhamaaday in loo kordhiyo. waliba baahidu kulli ma dhamaatee intaa iyo in ka badanna loogu daro. runtii aad baan ugu mahad celinaynaa maxaan ku dhahay hay'adii maxaan ku dhahay WFP oo raashinka soo naga ogolaatay iyo gaafo oo ahaa NGO-gii isagana la siiyo runtii maxaan ku dhahay NGO gobolka. waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Somali News, magaalada Berbera.